halkani waa Jabal TV. Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay go'aanka ICJ ee dib u dhageysiga dacwadda badda. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa ka hadlay go'aan ka soo baxay shalay Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga ah ICJ oo lagu cadeeyay in dib loo dhigay xilliga garmaqalka dacwadda badda ee maxkamadda hortaalla waqtiga dheer. Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga ICJ ayaa cadeysay in ilaa 15 bisha 3 2021 dib loo dhigay waqtiga garmaqalka dacwadda badda Soomaaliyeed ee Kenya muranka gelisay, iyadoo maxkamaddu ku sababeysay xaaladda uu sababay xanuunka coronavirus. Maxkamadda ICJ waxay 15 iyo 18 bisha 3 2021 dhageysanaysaa doodda dowladda Soomaaliya, iyada oo sidoo kale 17 iyo 19 bisha 3 2021 dhageysanaysaa doodda Kenya ee doonista badda Soomaaliyeed. Annaga doodayadu waxay ahayd hal cadaysana geed ay ku xoqotamo weydo cadaaladda oo dib loo dhigaa waa cadaaladii oo la waayay in si nabad ah oo cadaalad ku dhisan doodda garmaqalkeeda loo dhageysto Soomaaliyana iyo shacabka Soomaaliyeedna ay cadaalad helaan. Waxaanu ku adkaysanay inaan 8 Juun dib loo dhigin waqtigeediina maxkamaddu habka video conference-ka ay ku dhageysato, waayo maxkamaddu waxay soo saartay inkastoo ay ku cusub tahay nidaamkani in dacwadaha ay maqli doonto wixii 31 May ka dambeeya ay online ku dhageysan doonto sida ay u kala culus yihiin iyo sida ay u kala fudud yihiin iyadoo qiimeynaysa maxkamadda awooddaasna iyadoo iska leh. Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka ayaa cadeeyay in dowladda Soomaaliya mar waliba ay doonaysay in dacwadda la dhageysto xilligii loo qorsheeyay ee ahayd horraanta bisha soo socota, hase yeeshee dowladdu ay ku qasban tahay in ay u hoggaansanto amarka dib u dhigista ee ka soo baxay maxkamadda. Waxay maxkamaddu soo saartay go'aan ah in ilaa 15 March sanadka 2021 dhageysiga dacwadda u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya dib loo dhigay lana dhageysan doono 15 March 2021 17 March iyo 18 March iyo 19 March muddada 4 cisho ah oo 2 cishana ay Soomaaliya leedahay 2 cishana Kenya leedahay. Mudane Mahdi Maxamed Guuleed wuxuu sheegay in maxkamaddu ay go'aamisay sidoo kale in dhageysiga dacwadda uu noqon doono mid afka ku saleysan oo aysan jiri doonin cadeymo qoraallo ah oo maxkamadda lala tagi doono, maadaama labada dowladood ay horey u geysteen cadeymaha ay dacwadooda saldhigga uga dhigteen.